السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن صاحبيال برنامجك waxaad ku daawan doontaan wiilkii Soomaaliga ahaa ee lagu qabtay dalka Turkiga taariikhdiisa oo dhameystiran halkee ayuu ka yimid intee ayuu maray sababta ku kaliftay qorshahaas maxay tahay gabadhii lagu sheegay xaaskiisa oo isku bedeshay qof kale haddaba maxay isku yihiin gabadhaasi barnaamijka ayaad ku daawan doontaan inta aanan barnaamijka u guda gelin daawadayaal halkani waa Zobe Media Group haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saaro gambaleelka ha hilmaamin si aad ugu noqoto daawadaha ugu horeeya ee ka faa'iideysta xogaha aan baahino dawladda Turkiga ayaa maanta gacanta ku dhigtay wiil Soomaali ah oo iska dhigay haweeney si uu ugu duulo baasaboor ay leedahay gabar asaga la dhalatay laakiin in muddo ah waxa uu ku doodayay in ay tahay xaaskiisa isla markaasina uu baasaboorkeeda ku duulay laakiin baaritaan dheer kadib waxa la ogaaday in ay gabadhu asaga la dhalatay oo baasaboorkeeda ku duulayay wiilka magaciisa waxa la yiraahdaa Ibrahim Bashir waa 22 sano jir wuxuu deganaa Gaalkacyo qaybta Puntland wuxuuna ka soo jeedaa isla magaalada Gaalkacyo Ibrahim wuxuu Turkiga tagay 6 bilood ka hor isaga oo asxaabtiisa uu sheekeeyay in ay gabar saaxiibo yihiin wadi doonto Sahra Bashir waa gabadha la dhalatay Ibrahim Bashir ee uu sheegay inay saaxiibo yihiin laakiin waa gabar la dhalatay isaga haddaba siday u suurto gashay in Ibrahim la qabto maanta ayaa isaga oo raba inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee Ankara ayaa waxaa qabtay ciidamada indhaha gargorka leh ee dalka Turkiga wuxuu soo xirtay dharka dumarka iyo tin macmal ah wuxuu kaloo soo marsaday make up iyo gacanta waxa uu ugu jirtay boorso dumar wuxuu sameeyay wax kasta oo uu isagu isugu ekaysiin karo gabadha baasaboorka lahayd ee asaga la dhalatay haddaba wadankee ayuu u socday Ibrahim gabadha waxa ay degan tahay dalka Ingiriiska Ibrahim ayaana u socday dalkaasi isaga oo rabay in uu baasaboorkeeda Turkiga ilaa London kaga dago qaabka jirkiisa dad ayaa la yaabay sida looga shakiyay Ibrahim oo qorshahan watay muddo dheer ciidamo waxaa jira si qaas ah u tababaran oo lagu talagalay inay xaaladaha noocan ah la macaamilaan oo ay si dhaqso ah ku soo saaraan dadka dhaqamada noocan ah sameeya ama isu ekaysiya dumarka haddaba waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan arrinka noocan ah xukunkiisu muxuu yahay haddaba xukunkiisu waa 6 sano oo xarig ah sharciga immigration-ka ee dalka Turkiga ayaa dhigaya in falka noocan ah ay yihiin dambiye qaran waxaana macquul ah in Ibrahim uu mutaysto 6 sano oo xarig ah gabadha ayaa iyana 99% weyn karta baasaboorkeeda iyo deganaanshiyaha dalka Ingiriiska waliba waxaa loo badinayaa in ayadana xabsi la dhigi doono daawadayaal halka aad barnaamijkan ka daawanayseen waa Zobe Media Group haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub subscribe saaro gambaleelka ha hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee xogaha aan baahino